markuu waa بدين درجين كلين أفر كل يوم مرة ما إني وين كبديهين سببتوا دمركوا وابه هذا بني آدم دمركوا وحكستوا بيه ما يواصح وحصل ولي لكن أفر درجو وخصب أديك حتى تكون خصبنتها شراء والله يهلك الله تعالى كريم ما تسمعي أنا حسن ده كيف يقولون غطوا أنا حسن ده مرجع ما سنتها بالمسكح على بعض إيمان يدقن كذا هايستان شو ذي إيمان ولا ودليل هاي يدقن كذا هايستان مع الرجوع كسمي ما أنت سلاح كلام يعني ما كسر تركي معاه كذا يلا كلام سيدي ما كلمة يلا كلام لا تقول إيمان لا ما كلمة يلا كلام ما مو درني أكو ولا أنت سواء إلى إيمان يلا تو دقن كذا هايستان واو جنقول شورا هذه فرصة كلا ممثل أنا أبرز درجة أنت سقوا يا ري هذا ما سنتين كاسمر لها ما عايز ما ما عقد ما الله يسلمه يحكي له marka laakiin dhaqanka iyo dadka iyo xishoodka waxa soo dhan maaragtay ragga xataa waa laga rabaa muusanta ayna wala sidii dumarka lama wada la ya xishooda ka siiyay oo dumarka hadii aan in yar sharaxo horta su'aalaha barnaamijka lagu soo qaadanaya waa su'aalo tafatiran TV-ga waxa daawanaya culimo daawanaysa caruur baa daawanaysa caama daawanaysa cid kasta dhalinyaro daawanaysa waayeel baa daawanaya hooyooyin baa daawanaya culimo oo shiyuuqa daawanaya dad raba inay wax ka faa'iideystaan baa daawanaya dabcan marka su'aalaha la weydiinayo dadka ee qofka microphone-ka la weydiinayo waa inay dabcan noqdaan su'aalo number 1 anshaxa ku jira number 2 su'aalo macnaysan oo xigmadaysan number 3 su'aalo jira inay noqdaan number 4 su'aaluhu waa inay noqdaan de su'aalo qofka weydiinaya iyo ka jawaabayaba oo u arko inay su'aalo yihiin habaysan oo macnaysan laakiin haddii aan intaan microphone qaato suuqa tago oo idhaahdo hello assalaamu calaykum ma fiicantahay walaal su'aashan macnaha waa in dadka ku daawanaya ay ku fahmaan xushmada akhlaaqda practicalka iyo muslimnimada iyo soomaalinimada waa inaanay su'aalahaas ka baxsanaan marka su'aalahan aan anagu dadka soo weydiinaa waa su'aalo xigmadaysan oo aan dhaqanka ku jira waa dhaqan waa akhlaaqiyan waa diiniyan iyo su'aalo de wax laga faa'iidayo waa inay su'aalaha qofku markuu microphone qaadanayo anshaxa waa inuu ilaaliyaa su'aasha anshaxa TV-ga anshaxa qofnimada iyo anshaxa qofka uu weydiinayo iyo anshaxa daawadaha TV-ga daawanaya waa inaad intaaba ilaalisid laakiin haddii aad su'aal iskala soo boodid oo macnaha hal lagu daawado uun ama waxaan hala daawado uun number 1 dambi baa kaaga kordhaya number 1 de xishood darro iyo akhlaaq xumaa kaaga kordhaysa number 3 waxa kaaga kordhay daawadaha ku daawanaya oo macnaha qaarna yaxyaxayaan qaarna de ku habaarayaan marka su'aalaha aad weydiinaysaan dadka waa inay noqdaan su'aalo aad ka fikirteen waa inay noqdaan su'aalo la soo tafatiray waa inay noqdaan su'aalo aan shakhsiyadaada aan waxba u keenin shakhsiga aad weydiinayso waxba u keenin shakhsiga ku daawanayana aan waxba u keenin marka su'aashan aan uga jeedo aan caawa dhalinyarada weydiinay dabcan waa su'aal ah dhinac waxay noqon kartaa su'aal wax laga faa'iidayo oo dadka inta garanaysa mooyaane inta aan garanayn ayaa iyagana ka faa'iidaya su'aashan waa 4 darajo ama 4 shay oo muhiima oo dumarka ilaahay ku manaystay marka inta garanaysaan wayba taqaanaa inta kalena de maba taqaano oo waa kaas marka su'aashaas aan halkaas kaga gudo ragga ka hadli karo dumarka hadli karo soo هاي أفرد دمر الدرجة إليه حواء الدبنمرة
gaarinimada hawaannimada dadnimada iyo waxaas moogtay ragga xataa gaar bay leeyihiin marka dadnimada iyo gaarnimada iyo waxaasoo dhan way kala wadaagaan ragga waxaysan dumarka la wadaagin waay ragga miya ma garanayo walaal deeq baa la yidhahaa deeq cabdulaahi afar maxaa dhahday afar darajo oo dumarku leeyihiin afar darajo dumarka leeyihiin afar darajo dumarka leeyihiin oo yani xagga ragga ay ka leeyihiin camal maaha sideeda banaan darajo rabbaani iyagu leeyihiin yani sharaftooda ya iyo maxay heeto afar darajo oo dumarku leeyahay darajada koowaad waa hooyo iyo midda labaadna waxaan u malaynayaa waa si carruurta iyo reerka u dhaqdo midda saddexaad waa macallimad dadka wax barta ah maxaa yeelay okaadi midda afraad maxaa midda afraad oo ashu isku ka toosnayd haddii xogaa isku ka toosnayd waa iga kala dhacay saddex horta maxaa ma sheega tan afraadna maxaan ku sheegaa nin midda afraad waa ii goys magacayga waa Ismaaciil Maxamed afar darajo dumarka leeyahay afar darajo ma afar darajo mumkin karo ay ugu awlastay sore arintaas ma abda kugu adag bal maskaxda dib u baar isku day haddaan dib u baaro afarta darajo waa maamulka guriga mid waa maamulka guriga mid waa carruurta sidii u kala xanaaneynayso oo iskuulgii inta uga fakar masaasidiisa wax walba ya mid kaleeto waa dhalmada oo dhalmada ay ku tagayso markuu cunug kalama sidii u raadinayso oo qalbigeeda ugu weyn yahay wallahi cunug u raadinayso inaad dhasho baa ku weyn tahay marka su'aalaha waa kalma qeyb waarkeen lahayd hadda baan kuu sheegay saddex afartaba aad bay u fudud yihiin laakiin waxaan rabaa inaan dadka bal su'aalaha kala weydiiyo waa maasanta dumarku leeyahay afar darajo dumarku leeyahay wallahi waxaan malayn karaa walaalay hadda isku dayo inta isku qabatid ma darajo mise waa shaqay leedahay saantu darajo hadday leedahay waxa baran ka dhaa gabadhu waa shaqaysan ka dhaa waa oka barnaamijyadaas leedahay laakiin anigu malaha waa iga qoslisay ay malaha wakaaste madaxna waa noqon ka dhaa malaha intaas ku soo koobi lahaa hada mudug baad ka timay walaalo saasaan u yaro malaynaa reer mudug baad ka tahay ha haye laakiin marka maxay qaban iska Nairobi baad la joogaan madax waa noqon ka dhaa meesha soo tuurtay madax waa noqon ka dhaa waa shaqaysan ka dhaa wax waa baran ka dhaa xaasna waa noqon ka dhaa hooyo iyo awlaad waa yeelan ka dhaa wax kala another five su'aalood shan su'aalood kala ma wax kala waa qaban ka dhaan ay noqon ka dhaa wadaad baa noqon ka dhaa masaajid waa tujin ka dhaa macaa magacayga waa Ismaaciil Isaaq magacayga waa Ismaaciil Isaaq marka ma mayn afar darajo markay leeyihiin waqti naga la su'aalaha ma hayni ma afar maxay dhahan maxaan nabiyaasha naga dhalnaa boqorasha naga dhalnaa mid diinta naga u horqabsanay dhahan sharaftaas aan leenahay dhahan wakaas macnaha nabiyadu ay dhaleen cid kale dhaleen ka dhaleen sharaftaas aan leenahay aragaan ka tiba laga rabaa okay afarti maxay dhahan nabiyaasha naga dhalnaa boqoraha nabiyaasha naga dhalnaa boqoraha naga dhalnaa diinta naga u horqabsanay oo u hogan dalkii jihadka anaga u hortagnay wakaas afar darajo ay leedahay midda koowaad waxaa weeye shantada waqtiyadeed tukato shantada waqtiyadeed tukato farjigeedna xumaanta ka dhowranto soonkeedna ay soonto ninkeedna ay dhacdo English waa ku salaamaya darajo kale dumarku leeyahay maydu way shaqeeyaan adiga dumar baad shaqeynaysaa soomahan laakiin wixii darajo ahaan oo macnaha wixii magac ahaan oo maamuus ahaan ah anigu intaasaan garanaya ma aqaan wallahi dad cusbo waa mudan yihiin iskuma haysto laakiin waxay kale ma aqaano darajada hooyanimo
darajada hooyanimo midda naagnimo iyo darajada dumarka miya ardayno su-aasha afarta darajo ay leedahay naagta hadday 5 salaad tukato oo ninkeeda waa laga rabaa taas iska ilow hay tukala garanayaan afar darajo gooni u leedahay ma la gooni u leh afar gobol gabdhaha waxay gooni u leeyihiin miya nimanka dheere nimanka ma laha maaha aniga waxaan u aqaanaa inay caado tahay caadada nimanka ma qabaan caadada dhiigga periodka caadada ku dheh uurka iyo waxaa kaloo tabardarada afarta dumarka leeyahay ku sheegaa kabta kala ridda ma joogta ma jirta afarta